shacabku xaqiisa ha u istaago shacabku deegaanku xaqiisa ha u istaago ummad iyadu xaqeeda aanu istaagin weligeed duli kama baxdo dhibaatooyinka in haystana waxay ahaayeen maamul meel ka dhisan keligii ma ilaalin karo xaqa ummadiisa maamulku wuxuu wax ku yahay waa ummadiisa maamulkuna qasab kuma laha ummaddu inay garab istaagto iska taageerto ummaddu waa inay wixii ay ka rabtay ay ka heshaa cadaalad waa inay ka heshaa sinaan waa inay ka heshaa waa inay maaragtay adeeg ka heshaa bulsho waa inay naxariis ka heshaa waa inay waxa u xilato ay u difaacdaa uu meesha jiro weeyaan si kale difaaca odhan mayno 3 bilood ba hadda meesha aan joognay laakiin markaan 3 bilood ka baxnay 6 bilood iyo sanad iyo aan gaadhno bulshadu waxaan kula wada hadlaynaa ma aha maadaama madaxnayna taageera ma odhanayno xilka nolo maaragtay aan qabanay bulshada aan u qabanay inaan dadku ay waxay u xishaan helaan layd helaan biyo helaan waxbarasho helaan caafimaad helaan shaqo helaan waa in qofku isagu dawladnimada wax uu ka helaa uu ka faa'iido hadii kale hadaa adigu un gaari saarantahay maalin walba adigu mushahar qaadanayso adigu dulduulayso diyaar raacayso dadkiina aad leedahay maalin walba waa in ay taageertaan qofku wuxuu isweydiinaya maxaan ku taageeraa maxay kordhay aniga ama halkan noloshayda wax iska bedelay ilmahaygu wax iska bedelay ma jiro halkii baan fadhiya taageero qasab maaha marka waxaan isku dayaynaa inaan dadka kasbano oo wax qabad dhaba oo la taaban karo dadka oo iyagu naftooda ay taageerayaan inay helaan waxaana ugu horeysa wax qabadka in dadka la difaaco dadka in la difaaco oo hagardaamada iyo dhibaatada laga daayo laga ilaaliyo oo shacabku amaan u helo nabad helo taas ugu muhiimsan oo aanan ogolaanin oo kursi aanan ku bedelanin wax walba oo siyaasada ama Itoobiya ka yimaado ama Mareykanka ka yimaado ama Mexico ka yimaado oo dadkaas oo dambe hagardaame lagu sameyn inaanan ogolaanin haday noo noqotana kursiga aan uga tagno nidaamada taan ma yeeli karo arintaas ma yeeli karo dadka naga way iman kartaa birni arrimihii hadda koor inay istimaantana way iman karaan siyaasaddu waa la isku gafi karaa way soo bixi karaan waxyaabo marka la isku qoonsanayo ama deegaan ha noqoto ama federaal ha noqoto inaan shacabkana u istaagno nafta u hurno maayaan nidhaahno diidno wixii xaqiraada iyo wixii dil aan diidno annagu diyaar baan nahay shacabkan waxaan rabnaa inuu garab istaagaan arrintaas oo iyaguna ay wixii maaragtay gar ay u arkaan iyaga lagu difaacayo ay u soo istaagaan sida ummadaha adduunka aan caadi ugu noolaano waxaan meeshan ka dhac jiray iyo cabsida iyo duliga meeshan yaala anuu dalal farbaman ka soo shaqeeyay adduun badan baan maray meel uu ka jira adduunka ma jiro dadkeenu soo u noolyihiin qof magaalada ku dhashay cabsi ku noolaanaya cabsi oo qofku ka cabsanayaan qof aan magaalada u dhalan u yahay ama qomiyadiisii baan ahayn inaga baa lagu hayaa haba yaraatay waxyaalaha maaragtay cadifadana gelinay waxa kamid ah meel walba adduunka aad marto wax laga gudbay oo qarnigii 15aad iyo 16aad adduunku ka gudbay inaga haysta waa cabsiya naftiisa xorriyadda asaasiga qofku sidoo u noolaanayo inuu ka cabsado arintaasna wali way sii jirtaa anigu dawladda amaana ila oranayno hana amaanina qofkana amaana qof haadaan nidada u arkaano hana amaanina wixii khalad aragtaana sheega wixii sax ay aragtaana nagu taageero idinku ka duulayo aaminaadiina iyo saad wax u aragtaan taasaan maaragtay yaan dardaarmayna wixii dhibaato wadan ka dhacay waa laga daba tegayaa isla xisaabtan dhaba jiraysa idinka uu haleynka helo in wixii shalay dhacay dadkii sameeyay marka laga daba tago idinku ayaan ehliya qaraabo u noqonin haddana ay taagan tahay nin walba oo tuugaha oo malaayiin lacag dhacay oo hooyada masaakiinta iyadoo meel lagu dhaxtariyo aan la haysan 250 qasri dhisanayay marka la qabtay ee la xidho odayaal baa soo abaabulaya koofiyada xidhan odayaasha imanaya wiil buu noqonayaa wiil reer buu noqonayaa ana wiil ma haysano wiil reer hebel ma haysanee nin tuugo oo lacag haysanaysan ninka ka daba yimaada waa tuug isaguna waa intaa waa tuug iyo tuug kalkal marka kii lacagta uu siin jiray baan u aragnaa reerat waliba arinta hadii xabuurka ku badan tahay si gaar hadii xabuurka way ku badan tahay xaafadaha suuqa waliba ku badan tahay arintaas ma aragtay iska ilaalisan baa yaan ma soo jeedinayna aad bay ugu badan tahay arintaas marka tuugta waa qabanayna talaaba laga qaadaya wixii ay boobeen inta loo daayo noqon mayso in dad kale daawadaan oo leeyahay waajib ka faa'iido tobankiisa uu ka faa'iido leeyahay ma soconayso waa inuu eedaa qof waa inuu eedaa wixii dadka dilay gudiya loo saaraya gudi baaritaan qof wax dilay dadku kuma dhex noolaanayo sharciga la marinaya
qofkii la khalday ee uu akhlaaq xumo iyo xisaabeeyay in dhaqan cilis loo sameeyo inuu bulshada oo hagaagtay markaa isna hagaago toobad keeno waa loo ogolaan karaa fursad la siin karaa laakiin ma dhici karto dadkii shalay dadka dhibaateeyay waxa geysanayay ee wali si dagaalamaya friqsi leh in ummadda ku saddex jiraan meeshii doonaa joogaan ma dhici doonto haba yaraatay taayna wadataan odayaashu way ku fashilmeen markaan leenahay waa run meel adduunka Itoobiya kamida Gambela dhul baa laga boobayo odayaashu dhan way xiran yihiin kulli anigu uma aanaynayo cabsi iyo fuleynimo awalba dadku nin fulay nin geesi u lahaa anigu waxaan u aanaynayaa sidii aan qabdaar ka sheegay dhaqan aan hadda ku bulshadeena jirin baa soo kordhay oo ah waxa la yiraahdaa primitive pre-capitalist society baa la yiraahdaa luqadaha lagu yiraahdo pre-capitalist society waxa weeye waa bulsho iska ahayd uma reer guuraa ama beerley iska ahayd oo u gudbaysa hantigoosi marka hantigoosiga loo gudbayna waxa la qiimeeyaa oo macna yeesha lacagta iyo hantida bulshada waxa lagu kala qiimeeyaa lacagta iyo hantida lagu kala qiimeeyaa hantida iyo lacagta marka la kala qiimeeyo akhlaaqiyadkii aqoontii ayna jirin qof wuxuu u arkayaa hebel hadaad disho oo laakiin gaadha helayso waa okay dhawaato ma laha ahmiyadda noloshu waxay noqonaysaa guriga iyo gaariga iyo lacagta maxaa ka macna hebel waa soo sheegay laakiin waxa la isiiyay intaas ku odhanaya qofka waana baaratay bulsho buuxdo capitalist society ma nihin bulsho hantigoosiyo sida Mareykanka iyo inta akhlaaqiyadka dhismeen oo iskuulaadkii barteen oo bini'aadamada la baray deedna dhaqaalihii u gudubtay oo barka dambe isugu bedelaysa kuwan lacagaha deeqda bixinaya waa iyagii naxariis ay gelayso ma nihin bulsho islaamiyo islaamkii qabsatay oo quman ma nihin meel dhaxal lagu dhacay jahli iyo dhaqaale lagu dhax tuuray yaa soo baxay marka dhaqaalihii la ka yihiin akhlaaqdii iyo islaamnimadii iyo dadnimadii qof walba wuxuu ku mashquulay marka waxa uu badan la isku amaanaa boos ma leedahay guri ma leedahay imisa guri baad dhisatay imisa boos baad dhisay imisa qof baad gargaartay wax isweydiinaya ma jiro imisa qof baad maanta caawisay imisa qof baad ka farxisay imisa qof oo dhibaataysan baad wax siisay qof isweydiinaya ma jiro canaanta ugu badan ugu dhacaysa waxa anaga intaas shaqeynaysa imisa gaadi baad leedahay imisa guri baad leedahay maxay tartaa guriga gaarigu muxuu taraa muxuu yahay طبعا قف قاعديسان او cuntidiisa aan helayn oo security la'aan ah haysan food security la'aan ah hayso naftiisa aan macnaha wax cunay lahaa meesha xan la ka wal baharsan waa garti inuu ku mashquulo maxaa haysataa inuu ku mashquulo garti laakiin marka baahidaasi asaasiga laga gudbo wax ahaantu ma aha inaad dhaqaale iyo guriyo iyo gaari haysato ceebtuna ma aha in magaranaysa aabaha guri cariisha ku dhex jiro ma aha ceebtu aabaha hadduna waxba dhicin waxba dilin waxba kuufsanin akhlaaq xumo ka shaqeyn isagoo cibaadaysanaya cariiskii uu kugu dhalay hadduu ku dhinto waa go'aamuhu xumaan ma inuu maaragtay kolkuu dadka laayo uu boobo uu dhaco iyo tuugnimadu ay ammaan noqoto meel alla meel maaragtay ayna gaarsiinaysaa ma jirto haba yaraatee inaan waxaan ka waantowno qof waliba wax xalaalo ku filan wuu helayaa bulshadan lacagihii laga qaadanayo xafiisyada keliya 900 milyan 800 milyan 1 bilyan 500 milyan oo Soomaaliya ayna qaadan baa jirta xafiisyada lacagaha way ogyihiin wasiiradu xafiiskaas waa loogu tagay lacagahaasi haddii si caadi ah dadka loogu qaybin lahaa wax loo tari lahaa magaalada Jijiyada inta aan magaalada Gaxbuur inta aan anu joogeen ku noolaan jiray ilaa hadda waxba aan iska bedelin laba guri meel laga taagay mooyaan in biyo lahayn ee leer lahayn gaari baa lagu wada kar lahaa dadku waxay noqon lahayn dad nool oo caadi ah gaari wada wata dadka Carabaha meelaha gaariga ku wata dadka Afrikaanka Kenya gaariga ku wata idinka kama fiicna idinka wad fiicna inkama khayraad badna haba yaraatee hogaanu bay waayeen hogaan siyaasadeed way waayeen dul iyo guuleysina way ka hoos baxeen marka adeero sidoo uu hadlay aad iyo aad siyaad aad iyo aad runta uu qushuucay waxa weeye waxaynu nahay horta inaynu ogaano Soomaali baynu nahay xaq baanu leeyahay inaynu noolaano cidna magan ugu mid deegaankan inaan cabsanaa waa khalad afkaar kasto siyaasadeed inaan qaadana xaq baan u leenahay inaad ka soo qaado inay qaarkeed xaraan tahay fikirka inuu xaraan kula noqdo waa halka ugu hooseysa dunyada dadka marka inaan hankeena kor u qaadno inaan dhaqankeena iyo diinteena ku soo noqono inaan ummadda si wanaagsan u hogaamino oo ubadkeena aan u danayno nin waliba siduu awoogi ahaan buu hadda yahay wax yar baynu dhaanaa laakiin social transformation isbedel weyn oo ballaaran baa inagu dhacaya haddii aan maaragtay aan waxa yar dhaqaalaha lahaye deegaankana si fiican meel u gelino dhalinyarada shaqo u abuurno odayaasha ixtiraamno laamiye dhisano leerar gashano nolosheedu sidoo way ka fiicnaanaysaa dadku caadi buu noolaanaya dhakhtarka ninka haysta xafiiska wasaaradda caafimaadka Dr. Amiir baa leeyahay bahar dhaar baan isugu tagay markii dhaweyd wuxuu yiri gabadha Soomaaliyeed
jijiga ku umulaysa waa jijigaha dhowow waa caasimada haysataan iyo gabadha kale ee qoomiyadaha kale ee adsaba ku umulaysa waxaa u dhaxeeya adeega ay helayaan 30 sanadood waa daraasad la sameeyay yani 30 sano ka hor halkii dadka gabadha adsaba joogta adeega helaysay ayaa jijiga lagu helaa kuwa birqod iyo kuwa maartay garbe iyo kuwa maartay ferferiya waa garan kartaan waa 100 sano marka ay ka dambeeyaan waxa asaasiga halka inaan naalo wax iska yimid ma aha iska yimid wax inaga yimid weeyaan cid kale oo inaga dul qaadayso oo dawladda kor ka soo socoto oo aan oranayno sida Mareykanka noo yimid iyo dawladda noo timaada ma jirto waxa inagu noqono baan noqonaynaa wixii dhacay uu dhacay intii dhimatay Allah u naxariisto inta nool baa in laga baharo u baahan yahay mustaqbalka waxaan ku dardaarmayaa nin walba gaarka u shoorto oo canaanato oo wixii shalay tagay maanta aan ka daba tagno dad xun oo inta xumaanta jecelna way jirayaan intii shalay jirtay maanta way joogtaa laakiin dadka wanaagsan hadduu saraha soo maro ummaddu way hagaagaysaa awalba dad fiican way jireen iyadoo waxaas dhacayaan inta xun baa hogaamiyaysa bulshaduna waa 1090 toban hogaamiyaal percentage iyo 90 la hogaamiyo wey tobanka hogaanka hadday khaldamaan 90 kuwa hogaankan bay raacayaan dawladda wada dejin bay noqonaysaa ayda iyo aflagaadada iyo dilku iyo wax u baahan jiray islaamka waxa dhacay halkan in aydu iyo aflagaadada iyo sodoh la leeyahay waagay yareyn hebel baa saa ma garanaysa ali shaacaba dhil qaad biiga isagu hebel baa macnaha saa oran jiray meel ay ka dhacday adduunka akhlaaqiyad meel ay ka jirta ma aha dad muslima kuwa aan taaganka ee muslimnimada iyo diintooda lahayn muxuu ahaayay yani ka dhicin xitaa halkan way ka dhacday caadi baa ahayd caadi inoo ahayd waxaan ugu wacnaa ma ahayn dadka oo dhan inay xun yihiin 10% boqolkiiba 10 xumaa yaa ummadda hogaaminayay boqolkiiba 10 fiican hadday hogaamiyaan bulshada dhow hagaagaysaa intii iyada xun baa ka leexanaysa marka waxaan ku dardaarmaynaa sida adeer sheegay inaan xaqeena u istaagno waxyaalaha dhexda ah ee ka jira qabiil hebel reer ma dhamaanayaan maamulkii soo dhaadhiciyay la yiri cid kasta iyo haas maamushana in la eeda ma aha oo jirib iyo jirib uu sii galo adeeg bulshada baa la rabaa xaqeena aan u istaagno samaha iyo maarta xumaanta aan kala saarno odayaashu kaalintoodii ha ku soo noqdaan dhaqaale eriga ha iska daayaan cimri uma harin fara badan 10 sano 15 sano yaa ku ugu badan mar ay sii noolaanayaan daa'imka ay xooliyo iyo ka daba tagaan ma jirto kaajo u dhiban maayaan oo anaga u nool wixii lacag rabaa dawladda ha u tago hay'ad odayaal baanu nahay ummadooda ha u istaagaan ubadkooda ha u danayaan gabdhahooda ha u danayaan maxay u taraysaa haddii 10 kun oo bir meelaha lagu qaybiyo sida masaakiinta saa loogu daadaadiyo oo gabdhahoodii suuq ka wada galaan maxay u taraysaa ma nololba marka waxyaalaha inaan ka waantoono weeyaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa salaam ya